يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعباس جنرك عباس با صاحب يا دمانتي نوالي سلامي ما أنت إيمان حساب بدن إيمان إيد إيد الأضحى صاحب يا دمان ضدك ما أنت إيداي إيدك نصوح جنا يحجكم مقن إيدك شل سوماين أو دمان وحاليها إلهي دعينها أقبله إلهي سفر كنا نيها جاجي سكسو نقد ونكسن صاحب يا المات إيدي نسدهن كي هلب إيوا أنت صومهن محاني اللي وعي واي صاحب المعزومين سيميا وأصغر ويسين صومهن أنا أصغرنا مات حلقة نيجو عزومة نيو إيدينا إنه صاحب الحلقة maanta waa xalqadii sirta intaas soo dhan aaraadinayna weerarkeeda tenniska in xalqadan ee maanta wax badan ka ogaahayno xalqadan waxa waa xalqada xaqiiqda ah ogaahayno saaxiibayaal laakiin sida ay tahay xaqiiqda maadaama aan ka hadlayno wax xogteeda aad u fara badan yahay sidaas daraadeed waxa ku qasboonaada xalqada naftirkeeda in laba baarti u kala qaybiyo baartii koo waa xaqiiqda oo dhan oo balaaran ayda ku saabsan tahay intaas oo sisan waxa soo arkayna ku wareerayna confuse ku qaadayna baartigana ka soo afjaray saaxiibayaal baartiga labaadna waa is xalqada naftirkeeda 17aad sidaas daraadeed waa baartii ugu dambeeyay sidoo kale waxa waa xalqada qaybta ugu dambeeyay waa weerarkeeda tenniska durigiisa marka qaybta uumiisan waa qaybtan xalqada 17aad baartiga koowaad oo xaqiiqda dhanka ogaanaysid ayada marka xogta badan ku jirtana saaxiibayaal waxaan rabaa oo kaliya in maskaxda aasiisiin waxa waaye si aw season 4ka ku wareerin waa xalqada ugu muhiimsan laga rabo in maskaxda si sax ah u siisid waana xalqada weerarkeeda tenniska oo dhan ku ogaanaysid xaqiiqdiisa marka hal xabiya ka hoos bixin si fiican u fahanna nagu sali xabiibkeen maxamed sallallahu alayhi wasallam xalqadeena waa bilaabanayna俺たちがやることはただ一つ戦えxalqadii hore oo aad u xanuun badneed marka aragnay in uu Armin noo badbaaday laakiinse taliyihii kooxdii saaminta oo dhan Erwin Smith inuu naga geeriyooday taasna inay aad u xanuun badneed laakiinse aan aragna saaxiibkeena Danyero oo dhulka la galaayo oo Levi aslan rifayba anina saa u raaxaysanay daawada maba filaysid qalbigiisa u raaxaysanay laakiinse daawada ninka waa naga baxsaday ee sidoo kale teedka rakaabka iyo Rainer aan naga baxsaday markaas kadibna saaxiibyal dagaalkii Shigashina iyo darbiga Maariba ma haso nagu soo dhamaaday waana la soo celiyay darbiga Maariya ee magaalada Shigashina haddana maxaan waxa u taaganahay daawada xaqiiqdii oo dhan intaasoo muddo aaraadinayna intaasoo sisan aan soo dhaafayno oo dhan xaqiiqdii iyo su'aalihii intaasoo muddo madaxina ka dhex guuxayay in maanta aan soo afjarayno waana maanta maalinta tagaleen qolka grisha sirta oo dhan ugu duugatay tenniska iyo sidoo kale furiheena waa wadanaa oo waxa wada Erin Armin waa soo kacay waa soo naaxay sida caafimaad caadi bini'aadamkiisa ku soo laabtay laakiin Armin hadda wuxuu leeyahay quwadda tenniska weynka jirkiisana ku jirta hadda waxaan fiilaa sidii Erin oo kale inuu isbedeli karo markaas kadib waxaa israacay Erin iyo Mikasa iyo Levi iyo Hanji si ay u tagaan qolkii grisha oo dhan sirta ugu duugay Erin iyo Mikasa ugu dambeeyay xaafadooda hore waa imaadeen laakiin waxa sida ogtiin dhagaxa weynka guriga kor saaray inuu yahay dhagaxii hooyadiis ku dumayay laakiinse Erin iyo Mikasa saacadustaan qolka wuxuu ahaa dhulka hoostiisa qol kamid oo garish kaliya galay meeshaas Erin albaabka hoose markuu furo wuxuu dareemaa janjaro hoose inuu sii leeyahay oo libaxta albaab sii leeyahay laakiinse gudaha u galayaan albaabkan qufura ku xiran Levi si xoog badan darbo ugu jabinayo ayagana markii qolka galaan waxay arkayaan buugaag tiri kaliya iyo wax walba information oo waligood aan arkin inuu meel walba yaalana laakiinse ugu furay wali oo Erin oo wada meeshii oo lagu fur lahaa wali way laayihiin markaas kadib waxa la arkaaba furihii inuu wuxuu leeyahay meel riiso qaanada in la gelinayo meesha aan ku sheegayo waana qaanada markuu Erin saafuraha u geliyay markuu saas u qaadan waxay arkayaan inuu faariq u yahay laakiinse Levi wuxuu dhahaa meesha gacanta la raadibo Erin qaanada markuu gacanta la gal wuxuu arkaaba inay marale saas u kor saarneedo oo wuxuu sidii alwaax kale u eg markaas kadibna wuxuu ka soo bixinaya saddex bug wuxuu egtahay wixii loo baahnaa intaas muddo la raadinay saddex bug ay taaba Levi wuxuu u sheegay wuxuu leeyahay in waxa u baahnaa waa buwaagtan wixii aaraadinayna oo grishayeegar nooreeb waa buwaagtan waana buwaagta sirta oo dhan ku duugantahay adduunkan oo dhan markaas kadib ayagana waa soo laabteen kooxda saaminta ayagoo guushooda soo gaaray xaqiiqda soo ogaada sidoo kale ay soo xoreeyeen darbiga Maariya ee darbiga saddexaad shacabkana aad ay ugu farxeen waayo guryahooda hadda way u laaban karaan waa la soo xoreeyay xaqiiqdii adduunkan oo dhan grishayeegar nooreeban waana wadana gacantana ku wadanaanay laakiinse daawada ayaga inta soo bixin xaqiiqda way soo ogaadeen ee sidoo kale Mikasa iyo Erin buugta ayaga hamal isla gadiyay si xaqiiqda si sharaf badan ugu ogaadaan waqtan mid kamid markii baalka koowaad ay saas u qaadeen waxay arkeen grishayeegar oo yar sidoo kale naag oo kursi ku fadhisa iyo cunugiriisa dhabta u saaran tahay laakiinse daawada waxa la yaabanahay waxa ka hadloon waa kamera waxa ka hadloon waa sawir waligeena sawir ma arkin wax anuga naga duwan waaye Hanjina sawirka la yaabanta waaye aadanaha kamera iyo sawir ma gaarin markaan laakiinse Mikasa waxay leedahay marwa Hanji warqada adeergasha oo ku sawiran yahay gadaasheeda qoraal ku qoran Hanjina sawirka markii gadiso waxa ku qoran hadal cajiib ah hadalkan wuxuu leeyahay waa ogaa waxa ma ka aragtin in ayaabiisay laakiin waxaan waxa waa aniga iyo sidoo kale xaaskayga Diana Freitas iyo cunugayga Sigyeger waxa lagu qaaday aalad loo yaqaan photograph oo kamera ah aaladaasna lagu qaaday dawlad loo yaqaan Marley daawadiya
iyo sidoo kale Hanji iyo Levi iyo Eren wixii meesha oo jooga oo dhan aadanaha ma uusan dhamaanin aadanaha intaasoo muddo adduunka way ku noolaayeen waliba heer waxay gaarayaan billions inta adduunka ku dhan ku nool yihiin anaguna waxaan nahay shacab loo yaqaan Ilidia oo dawladda Marley nool mahaasna waa qisadeed meesha ay ka bilaabanayso aniga iyo walaashayda daawade wallahi macquul maahan wallahi xaada ay istaagtay macquul maahan qisadii intaasoo muddo aaraadineen ma saameen noqotay wallahi macquul maahan ma hadda daawadyaal waxay leedihiin aadanaha tarankiisa ma uusan dhamaanin aadanaha adduunkan oo dhan waa ku nool yahay meel walbana way ka joogaan allah muxuu hadalkan Eren ku farxi lahaay markaas kadib ayaga Grisha Yeager waqti u hibeeyay markay madaxda u geeyeen Eren iyo Mikasa waa la xiray sababta loo xirin ay tahay waxoogaa ciqaab oo la marinayo oo kaliya ay Levi khilaafayeen markay Eren la dooranayo laakiin daawada waxaa jira wax kale oo la yaab ah Eren markuu waqti taabto waxay bilaabmad xasuusta aabiis in isfurfurto maskaxdiisa wax dhan oo arkay Eren dibadda banaanka aabiis wuxuu ku noolaa jira oo dhan haddana xaqiiqtaas gudaha u gal raba saaxiibayaal maskaxdiina amaahiya waa maxay dawladda Marley la sheegay sidoo kale aabiisna muxuu ahaa waxaasoo dhan hadda wax ka dhex arki doona xasuusiga Eren uu arkooyo ee naga socdo saaxiibayaal sanadkii 825 Grisha Yeager oo aad u yaraa sidoo kale walaashiisa Faye Yeager oo 8 jir ah ayay waxay ku sugayeen magaalo loo yaqaan Liberio magaaladaasna ay tahay dibadda banaanka aan magaalo aan weligeed aan aqoonin oo hadda aan baranayno waana dadka adduunka nala sugnaa anaguna intaas muddo aska dhaadhicinayna in adduunka qof oo bini'aadam nala noolayn taasna waxaa waajahay qaadna jahligan hadda maanta aan ka bixi doono Grisha Yeager iyo walaashiisa waxay ahaayeen dad dibadda banaanka ku nool sidoo kale waxay ahaayeen dad la nool dawladda loo yaqaan Marley laakiin dhibka ka jira meesha waxay tahay marwalba Grisha Yeager dadkiisa iyo asiga marwalba indhaha la raaci jireen ayagana meel ku xiriyiin oo meesha sataa maxbuus iyo xabsi ku yihiin dawladda Marley wuxuu sameeyeen dadkaas sida saddex darbi oo kale magaalo weyn oo sida qalco kale u xireen meeshaas waxa waaye banaanka waxa uu soo bixi kara oo kaliya dadka aqoonsi ka wato waxay saas ugu galayaan Grisha Yeagerna wuxuu la yaabay dawladda Marley waxay saas ugu galayso laakiin markaas Grisha uu iska laabtay inkastoo iska reebo walaashiisa banaanka inuu soo tuso habeenka markii la gaaray Grisha Yeager markuu soo aqliyasto soo weynaado wuxuu bilaabay inuu aabiis weydiiyo sababtay ma ugu xiran yihiin oo dawladda Marley oo marba saan u faquuqayso Grisha Yeagerna aabiis wuxuu ugu jawaabay daawado wax aqligaaga aan galeynin maskaxdeena intaas muddo xataa wax su'aalo isweydiinin in isbedeyso qaarna jawaab noo noqonayso qaarna aan la yaabeynaba hadalkan hadda aan maqli rabna saaxiibayaal waa xaqiiqdii intaas muddo u baahnay inaa ogaano marka maskaxdiina ha joogto hadda si walba ogaada saaxiibayaal wala socod xalqadan taano hal xabba yaan iga baxsanin haddana hadalkeena waa bilaabaneynaa Mr. Yeager Grisha Yeager aabiis wuxuu leeyahay 2000 sano ka hor waxaa jirta gabar loo yaqaan Ymir Freitas gabadhaasna waxay ahayd gabar yar oo sharad la gashay shaydaan oo siiyay awood aad u halis badan taasna waa waxay aaminsan tahay dawladda Marley laakiin anagu waxaan nahay shacab Ilidia ah marka hore waxa ahayn dawladda loo yaqaan Ilidia gabadhaasna waxay ka tirsanay shacabka Ilidia waxayna ahayd hooyadeena oo dhan waana qofka anagu ka taranay waana hooyadeena asaasiyada oo dhan anaguna waxa aaminsanahay awoodda sidaas ku heshay in ay tahay wax Ilaahay u hibeeyay oo anagu noo hibeeyay oo u guuleysan karna adduunka oo dhan taasna waxa aaminsan Ilidiinta halka Marley ay ka aaminsan yihiin aragti kale oo ah inuu shaydaan u hibeeyay awooddaas Ymirna markaas way tarantay ilaa ilmaheeda ay tarmaan oo jirkooda dhan dhammaantood Tetris ku jiro laakiinse Ymir maalintii awooddan ay heshay ilaa maalintii ay geeriyootay waxay ahayd 13 sano ayay inkaar ku noqotay awooddeeda qaybsantay awooddeeda Ymir way qaybsantay waxay u qaybsantay 9 Titan markii laga soo gudbo taranka markii ku dhacay waxa waa Ymir waxay sii dhashay firka wir ilaa Ilidiinta oo dhan ay bataan oo jirkooda Tetris ku jiro laakiin tan way ka duwan tahay tan waxa waa Ymir awoodda markay heshay ilaa maalintii ay geeriyootay waa 13 sano bis 13 sano ayaa inkaar ku noqotay 9 Titan oo awooddeeda u qaybsantay Ymir Freitas laakiin daawad waxa ku fikirayso waa ogahay Ymir markaa ka hadlayo waxa u maleysay historia saaxiibadeeda Ymir soo maahan Ymir magacaas intee ka keentay gabadhaas ana gadaal nigi sheegay marka hore qisadana xiisan u heysay aad dhameysano Ymir Freitas markii awooddaas heshay waxay aad ugu caawisay boqorka Ilidia iyo dawladda Ilidiaba waayo dawladda Ilidia aad u nacab ugu dhaxeeyay dawladda Marley dagaalkooduna intaas qornay oo soo socday mar walba waxa guuleysay jira dawladda Marley laakiin dawladda Ilidia markay gacanta ku dhigan awoodda Tetniska waxa bilaabatay dawladda Marley inay aad u jabaan oo mar walba guusha ay qaadan dawladda Ilidia taasna mar walba waxa caawin fiican ku siinaysa boqorka Ilidia Ymir Freitas oo ahaa qofka u wareegay Titan noqdo laakiin daawada markii Ymir Freitas ay geeriyootay oo awooddeeda u wareegtay ilmaheeda sidoo kale u qaybsamay 9 Titan waxa dhacay Ilidiinta awoodayna awoodunku u adeegsadaan dawladda Marley sidoo kale u adeegsadaan ee wax walba dadka ku gumaysanayaan waxay rabta ka sameeysanayaan taasna waxay isla weyni kibir oo ka dhashay Ilidiinta gudahooda laakiin kadib waxa dhacay daawada dagaal u dhaxeeya Tetriska gudaheeda sidoo kale Marley waxaana dagaalka u soo ba'ay family loo yaqaan Tiber daawada qoyskan Tiber ku sheegay waa qoys oo garb Marley ku sii in Ilidiinta badan ay iskhilaafaan qoyskaasna waxay ahayn qoys Ilidiin ah waxay
إليدينta badana ay ku aqriyeen in boqorkan fikradiis dhan ay qaldan tahay boqorkaas magaciisa wuxuu ahaa Karl Freitas boqorkaas wuxuu ahaa boqor إليدينta badana ka soo horjeesteen iyo familka qoyska Tiber loo yaqaan qoyska Tiber loo yaqaan waa qoys ka soo horjeesta boqorkaas waxayna rabeen xilkiisa oo kale inay qabtaan laakiin ayaga boqortooy jirkooda kuma jirto taasna isaas waxay u sameynayaan oo dagaalka soo abuurayaan waa isla weyne ayaga ku jirto oo dadkooda ugu soo horjeesanayaan dagaalkaas waxaa dhaca daawada jabkii ugu weynaa إليدينta ku dhaco sidoo kale boqorkan loo yaqaan Karl Freitas inta dagaalkaas lagu jiro waxaa dhaca 9 kamid ah in Marleyga leexsato oo Marleyga إليدينta la jiro ay garab ku siiyaan taasna wax ka shaqeeyay ahaayeen dawladda Marley sidoo kale qoyska Tiber markaasna kadib waxaa dhacday in dawladda Marley ay ka guuleysatay dawladda إليديا muddo 1000 sano kadib boqorka Karl Freitas markay jabka soo gaartay wuxuu go'aan ku qaatay in إليدينta asaga la jiray shacabkiisa inuu dib ugu laabto oo geeyo jasiiradaasna waxaa loo yaqaan jasiiradda Paradise laakiin Marley waxay damacsanaa in boqorka xataa ay ka qaadaan teetanka asaasiga ay wax dhan teetanka la wareegaan laakiin Karl Freitas wuu fikray oo dib ugu laabtay markaasna wuxuu sameeyay 3 darbi jasiiradaas ku sameeyay 3 darbi waa taqaantiin Maria Rose isina waay waana meesha intaas muddo ah ku nooleen jahlinimo ugu nooleen laakiin daawada Karl Freitas 3 darbi u jeedisay si sahal uma sameeyay 3 darbi wuxuu ku sameeyay teetanka asaasiga qudradiisa wuxuu sameeyay إليدينtiisa qaar badan wuxuu ka dhigay teetanka weynka oo teetanka weynka marka ka hadlayna waa malaayiin oo teetanka weynka ah oo ku sameeyay 3 darbi ee gudihiisa ku jiraan haddana waa ogaatay Soomaa 3 darbi maalintii season 2 ay ku arkeen darbi gudihiisa ku arkeen teetanka weynka wuxuu ahaa teetanada 3 darbi gudihiisa oo asiga Karl Freitas ugu sameeyay laakiin hal ma ahayn intaas malaayiin ku xijiyay 3 darbi gudihiisa ku jiraan taasna waxaa sameey kara oo kaliya teetanka asaasiga sidoo kale xataa wuxuu sameey karaa 7 teetan oo Marleyga ay qaadato xataa inuu ka qaado laakiin Karl Freitas wuxuu rabaa nabadaas oo ka talinaya إليدينta oo Marleyga haysta xataa asiga xataa uu jecel yahay oo rabin xataa inuu ayaga xataa waxay rabaan oo jooskooda oo inuu qaso sidaas ugu dhaafo xornimadooda u sii laakiin wuxuu dhahay halahan teetan 3 darbi ku jiraan oo malaayiinta waxa wada adduunka inay ku burburi karaan hadda soo dhawaatiin oo maahan igu maatiin waxa igu balana inaa soo fasaxo oo adduunka dhan ay baabi'iyaan markaasna Marley waxay go'aansadeen adduunkan waxay go'aansadeen inay u dhawaaneen boqorkaas meeshiisa ugu dhaafaan muddo qarni ah asigana markaas wuxuu sameeyay Karl Freitas markuu 3 darbi dhisay wuxuu إليدينta darbi gudihiisa ku jiro wuxuu sameeyay xasuusooda dhan oo tataro oo kala dhacsi adduunkan inay teetan isku nool yihiin adduunkan bini'aadan aan ku nooleen ayaga mooyee jaahiliin oo ayaga dhan ka dhiga sidaas oo ka dhacsi si ayaga nabadooda dantooda ugu jirto markaas kadibna waa ogtiin wixii dhacay muddo qarniya oo Marleyga dhaqaaq ay sameeyeen ay soo diriyeen teetanka gaashaanka iyo teetanka weynka 7 teetan mid kamid ah haysteen laakiin daawada 7 teetan marka ku dhahaaya hal teetan dhiman teetanka asaasiga ku dar 8 waay hal teetan maqan hal teetan ayaga ma haystaan meel ay ku ogyiin male Marleyga teetankaasna gadaalan ka bar doonay xaqiiqdiisa ilmuhu ku maqan yahay ee qofka milkiinaha hadda haysto laakiin hadda waxa ka hadlaynaa Ymir historia saaxiibadeeda sababtee magaca Ymir u baxastay Ymir Freitas hooyada teetanka magaceeda ay wadato Ymir waxay ahayd gabar iska faqiir oo nool إليدينta Marleyga la sugan agoon iska ah oo ilma faqiir jidka banaanka iskaga jirto laakiin maalmaha kamid ah umaana nin إليدي ah oo rabo in gabadhaas lacag ka sameeyo gabadhaas wada wuxuu ogyahay إليدين u baahan inay arkaan qof dhiig boqortooyada leh wuxuu ninkaasna ku dhacsiiyay إليدينta in gabadhan boqortooy ay leedahay Ymir Freitas hooyadoodana in dhiigooda xoogaa ku jirto ayagana taas markay maqlaan aad u farxayaan gabadhan waxay u baahayaan Ymir sidii hooyadooda kale inay u arkaan weena caabudayeen cunto fiican way siinayaan aydan xanitaankaas iska farxay magacaasna sidaas ay ku dhaxlay ee magaceeda kale ay u qaadanay laakiin ma oga ayaga magacaas wax kale inay la damacsayn oo Ymir Freitas hooyada teetanka oo hooyada إليدينta oo dhan inay la damacsayn ayada ahaan u caabudayaan laakiin maalmaha kamid ah Ymir ayuu sidaas u caabudayaan Marleyga ku soo galay Marleyga markay ku arkaan waxaas ayaga dhamaantood dhan wala wada sidaas daraadeed waxa la geeyaa jasiirad Paradise jasiiradaasna daawad aan ku sheegay wax kale ma la geeyo waxa la geeyaa إليدينta Marleyga ciqaabayaan bis waxaan lagu duraa cirbada teetanka cirbadaas teetanka إليدينta ka dhigaysa waxa ku jira dheecaan laf dhabar teetan laga soo qaaday dheecaankaas waxa laga soo qaaday teetan aan waaci ahayn ama teetanka waaciyada xataa iska dhexata bis laga soo qaaday إليدينtan hadii lagu duro waxda dhuuntooda xidid kamid lagu duro isla markii way isbedelayaan waxay noqonayaan teetan aan waaci ahayn Ymir macal ku caabudayeen dhamaantoodna sidaas isku bedelan Ymirna 50 sano waxay ku nooleed dibadda darbigiisa ha saaxiib ya dhacdaas markay dhicis waxay ahayd muddo 50 sano ka hor Ymirna shakalka teetanka iyadoo ay 50 sano ay wax ku wareegaysa darbiga banaankiisa laakiin daawada waa ogtiin maalin waxa dhacdo إليدينta teetanka 7 teetan leh oo soo direen Marley si u jabiyaan darbiga Maria ayaa hal kamid wiil ay ka cuntay Ymir laakiin markaas Rainer iyo Bertold iyo waa yaraayeen markaas ay Annie Ymirna waxay cuntay wiil kamid 7 teetan Marley haystaan marka ay teetankaas ay cuntaan Ymir wuxuu soo laabatay bil aadan Rainer iyo Bertold waa ogtiin maaha way ka carray laakiin daawada waxa yaab meesha ka jira ay tahay Ymir waxa rabay inay teetankaas qudradiisa oo dhan ay qaadato ma uusan qaadanin Ymir waxay noqotay bis oo kaliya teetanka ay marka hore ahayd aan waaci ahayn bis ay noqonay markaas bedelayso teetankaas daawada waa teetan qof rag lagu talagalay qof raga qudradiisa sax soo saari karo laakiin qof dumar soo ma saari karo sida ogtiin 9 teetan Ymir awoodeeda u qaybsantay qaar awoodda qudradooda waa aragna qaarna ma arkin kuwaana arkan qudradiisa ama awoodiisa saaxiib waxa waa teetanka asaasiga teetanka afjibiska iyo teetanka dagaalyahanka iyo teetan aqaana ku aragna garisha yeegar sidoo kale Eren yeegar ku aragna laakiin magaciisa ma aqaano qudradiisa ma aqaano qudradiisa gaar waa u maleeyahay say la tahay waan arki doonaa insha Allah qudrada ama waxyaabaha gaarka 9 teetan ilayeen kuwa aragna marka ka hadalno waxa waaye teetanka gaashaanka milkiilahana waxa waa Rainer Brown qudradiisa waxa waa inuu meel u bajamin karo jirkiisa tabir oo yahay
ee lagu jebin karin teedka weynka milkiilaha hore wuxuu ahaa Bertolt Hoover milkiilaha cusub waxa waa Armin Arlet wadadiisu waxa waa inuu aad u weyn yahay oo gaaraya mitir 60 mitir sidoo kale jirkiisa oo soo deynaya kuleel zaid ah intaas tusaale u qaadanayna inta kalena waaba ogtiinba markaas kadib Grisha markuu sheekadii maqlay waa yaaban yahay maskaxdiisa way qaadal ah hadalkan Grisha maxay tahay daawada anuka yaaban oo qisada sida isku gadisay sida hadda ay tahay la yaabanahay anuku waxa ahayn aadana difaacay aadana kale laakiin maanta waxa banaanba aadana ma difaacayay anuka aadanaha halis u ahba waana wax la yaabo oo mucjiso ah sida isku gadisay qisada oo dhan wallahi siyaama mucjiso tahay inta kale ay xaqiiqada inta laga dhibana xalqada gudaheeda baartiga labaad dhameysan doona insha Allah waana maasantii saaxiibayaal wallahi maxaa yaabnay xalqadana saaxiibayaal ha iloowin waxa gaarsiisay 5k like waana xalqada xaqiiqda teetaniska oo dhan xaqiiqda siiya waana maasantihiin